محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وحال بركة الله علينا عين القاص بدونها وقت السنة ما عليه هيك بنتلان مسؤوليته ولا وضع قرية شعبه سولوينتي يو قدرتي حشمتي فرع بضي مدني أن تشوفني أنا كلام بضي ومن اللي يدور كريم أنا تعرض على مرة فلي الله قبطان سال وصل الله هذا اللي يبغى عليه أنت كسكو حال ورم مجال وراء كيانا وحالنا كان لي وحال فيها فيانك هدوء على رأينا وحينا تفسيرا أنا أقول ترى باهنا أنت أبو رست عيدا ما يسكن نافع وحالنا وقبصتي markaan weynay wax loo dhaafa oo hawshii uu iska lahaa ciidanka qaran iyo dowladda dhexe inay fuliso inay ku adkaatay wax badan culayska shabaabku aad loogu cuslaaday taasaa waxay keentay inaan isku tashi samayno abuuro bal ciidamo isku dhafa oo daraawiisha isla howlgala kana mid noqon doona xilliga la helo cid si fiican ula wareegta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya midaasoo aan u qaadanay in weliba laba state la isugu xidho oo maanta nabadda ka jirta Galmudug iyo Puntland marka ay noqoto ciidan isku dhaf oo marra ka howlgala buuraleyda galgala marra xarameelo tagay ay wada howlgalaan xataa dadku waxay dareemi karaysaan aad garanaysaan koonfur galbeed iyo Jubbaland oo meelaha culaysada shabaabka ugu badan uu ka jira ay tahayna marka ciidanka la isku dhafo ay labadaa deegaan karan karaan inay Jubbada maxaa la xoreeyo deegaanadana si isu furan looga shaqayn doono taasoo islaahay waxay soo dhaweyn kartaa howlgalka amni iyo xoreynta deegaanada iyo la dagaalanka argagixisada waxay ka noqon doontaa qayb libaaxda waxay kaalmo u noqon doontaa inay helaan ciidamada amisom xataa ciidamo si dhagan ugu loola howlgala isla markaas deegaanadii laga xoreeyo shabaab ay maamul iyo ciidan wada jiro oo kala wareegan heli karaan haddii la yidhaahdo meelaha sida deegaanadadaasoo kale u baahan culayska noocaas uu ka jiro waxaan is leeyahay waxtar weyn bay noqonaysaa taas markaa waxaan rabaa inaan ugu daro beesha caalamku mar haddii in badan aan dowladda iyo kala hadalay arrinta amniga iyo arrimihi lagu heshiiyey waxba ka socon waayeen in arrimahaas sida ku qoran warmurtiyeedka ay nagala qayb qaataan oo dhaqaale iyo taakulayn iyo wax walba waxay loo geysan karaan ay loo geystaan waana isleeyahay waa sababaha ugu muhiimsan ee maanta nagu qaylada badan naga keenaysaa waxay tahay waa laba xaalo arrinta amniga oo dhibaato badan iyo mushkilad naga haysato iyo sistamka federaalka oo isaga laftirkiisu qaabka uu socdayo siduu yahay ay wax badan dhibaato ka jirto siyaasadda caalamka ama dhaqaalaha caalamka laga helo ama siyaasadda caalamka qaabka u wajahantahayna iyadana sida hadda lagu sheegayo waxaa fiican bulshada caalamku wixii ay Soomaaliya ugu deeqday waxaad moodaa inuu sidaan hore u sheegay gaturu dhaafilayahay hal meel ku wareegsan yahay taas daraaddeedba waxaan arkayseen oo ku qarraba mutiyeedka in lagala hadlayay warbal waxaad bixinaysaan iyana dhibaato abuuri qodobka labaad waxaad bixinaysaan hal noqdo mid gaadha dadka oo deegaanada gaadha waayo dowladdu waxay ka baaqsatay inay lug ku yeelato ama xalliso ama ay fududayso ama ay fuliso waxyaalaha lagu heshiiyey iyo mas-uuliyaadka waxaa aad la isu weydiinayaa hadda saxaafadii la isu isticmaalayaa annagu inaan nahay dad dowladdii diidan oo qarandumis oo kala oo dhowr nin oo meel isugu tegayso oo sheekada ay inta badan wararka saxaafadda dowladdu ay fidisaaba kuwa iyada nooca khaldan ugu shaqeeya laba hore waa caws jiilaan dowladnimada Soomaaliya iyo midnimadeedu waa muqadas midna ma diidayna waana u taaganahay marwalba waxaan ka hadlaynaana waxay tahay mas-uuliyadda la saaran iyo waddankan iyo xaaladdu ku jiro oon isleeyahay kuwa mas-uuliyadda maanta iyo wax badan baa lagu xogaalsanay baahida iyo duruufta lagu dhacayso maalinta horena aan ka hadlayay in wax badan la isla ogaadaa waa shay muqadas
عدة أننا أفر يشل يستيدل إلى شعب كأننا أمام الله يوم أننا المسؤولين يسيرين مركز أننا نقرعوا أيانا رسالة شعب كان جالسين الناس لا فهموا أو وحنا نجد حيو يجسوا دافعوا أو مرة بقى إسكندرية تكرفال يا كحد جدب أي سماينا يا حتى وحسوا قال أين إنتاس قال ده واحد مشكلة يبرر بالكنيسة تامر كبرشة عالمكم waxay bixinaysaa inayna noqon waxa laga dhibaato loo geysanayna noqoto wax Soomaalida u xutarayo baryada laftirkeeda arinta ay siday tahay u fiiriso wax laga maarmaan wuxuu ku cad yahay warmurtiyeedka haysataan hadda la idin akhriyay arinta shirweynaha ku saabsan xaasleeyahay shirweynahani waa mid taariikhi ah waa laba xaalad baan uga hadlayaa kow waxaanu ka hadalnay waraf Soomaali baan ku hadlaynaa dowladdiina isaf garan weyni turjubaan baan u baahanay oo Soomaali ah oo wax loo kala gudbiyo aqalka rasalaa isxil qaaday jawaabta la soo siiyay waxay noqotay afar wasiir baan idin soo diray haydin la xaalay oo saacadda u dambaysa laga hadlayo saacadda u dambaysa wasiir wax soo qolay riyaal la isu sheegay wadan dhan riyal uma maamuli karayo taasoo waxay keenaysaa inaanu ku baahan laba sababood inaanu shirweyne la isugu yimaado siyaasiyiinta xildhibaanada aqoonyahanka waxgaradka dadka Soomaaliyeed inay nala arkaan dhibaatada taagan laga tashado wadankan godbu ku sii dhacaya iyadoo hor fadhiyana la isu weydiinayo xalaal iftiin baa la qasaa waxa la isku xamanaya nin walba waxa lagu xamanaya banaanka la isu keeno oo dadku ay ka tashadaan bal xaaladda wadanku ku socdo xagee tahay meeshay jirta dhinaceena maanta in su'aasha la isu weydiiyay aad bay u tahay muhiim waxaan aragnay in waxba la isku hubsanaa si publiga balinta la isugu yimaado dadku masiirkooda iyo talada wadankan boogaha leh ee wada danqanaya ee cadowga haysto ee shabaab ku ciyaaraya in la isweydiiyo leeyahay wadankan xageebu ku socdaa hoggaanku xageebu wada xageebu nagaga tagaya Soomaalida waxay tiraahdaa loo aynaan ku fulin doonin ku aroorin oo daceelka qof waxba ka qaban karin waxay u baahan tahay taas markaa in shirkaasi la garto muhiimadda uu leeyahay oo isleeyahay shirarka Soomaaliya ka dhacay ku ugu muhiimsanaa ka mid yahay waxaan shirkaa ku dooranay inuu ka dhaco Dhuusamareeb oo maanta uu madaxweynihii galmudug dhinaca midigta fadhiyo oo aan isleeyahay wuxuu mudan yahay in looga mahad celiyo xaalado badan oo soo maray galmudug ay soo martay wuxuu mudan yahay inuu talaabo iyo nabadgelyo qiimaha ka qaatay arrintii ka dhacday gaalkacyo iyo dagaaladeedii oo isleeyahay isaga aabbo waa maanta xasiloonida iyo inuu wadada soo maray iyo in dadkaasi ay midkaas noqdaan qaybta labaad oo ahlu sunna oo la baxday maamulka gobolada dhexe iyo galmudug oo kala taagnaa inuu tanaasul iyo isu dhimrin iyo odaynimo iyo mas'uuliyad intuu qaaday maanta ay galmudug kugusan ay maanta isku riixayaan inta qalindaarka ee dowladda dhexe ay ku wada mooyeen inaan markaa bal la tuso Dhuusamareeb oo caasimadii rasmiga ahayd u soo guureen galmudug balti la isugu tago shirka qaran ee taariikhiga noqonaya inuu iyada ka dhacana waxay noo tahay guul iyo waliba arrin taariikhi oo dhacaysa ka mid tahay dilayna qorshaha dowladda ee ku aadan hanaanka federaalka dowladdu hal way u bannaan tahay ciidan xoog leh intay dhisato oo shabaab wadanka ka saarto oo systemka federaalka burburiso oo gees ilaa gees ay iyadu wadanka gacanta ku qabato inay sanadka ugu yeeriso ay ama dictatorship ha noqoto waxay rabtaa noqoto inay ku samayso laakiin wadan magaalada jidkii marka mukarrama la kala socon lahayd qaabkan in la yiraahdo waxaan buu burburinaynaa sidan ay yeelaynaayo dad waraajin la isu wada sheegayay waa waxaan saxayna meesha ku yaallo weey arrintan markaa burburinta hanaanka iyo isteedada aad garanaysaan shalay wixii lagala soo kulmay iyo dhibkii federaalada iyo isteedada dhismahooda iyo intii dhibaato iyo waqti iyo kharash ku baxay in maanta si sahlan koox yar intay wax isu sheegtay guri hoosta ka gasho waxaan jirin la isu sheego la yiraahdo sidan istaan noqonaysaayo ma aanan arki jirin iyo dawlad hebla khadka ka soo qaadanaynayo kuwa aan sheegin hadda taladooda oo god loogu daadanayo in la sameeyo waa arrin dhibaato leh waana tan ku qoran maalmoodba waxaa lagu soo dhacday dhowr maalmood gudahoodba waxaa weynay diyaaradaanu ku qaadna dhaawac mushkiladda ugu yarayna gaaraysa
laba diyaaradood jad ah waxaan arkaya baabuur bullet proof ah lagu qaaday baydhabo loo dijinay musharax baa loo wadaa ma afgembi baa mas'uul musharax doorasho way dhacaysaa waxa aad loo propaganda loo wadaa way ku darsanayaan extension horta extension haddaan ku darsano state waliba wuxuu leeyahay constitutionkiisa baarlamaankiisa dastuurkiisa isagaa iskale isagaa ku dhaqankiisa leh cid looma yeediyo dowladda dhexe inta ku leedahay waa la yaqaana annagii baaba u soconno ku dar sidaas sheegtee hal saacadood xataa idinkala hadlina extension meel cidi ku jiro cidda beebeega la soo saarayo iyo lagu qaadayo diyaaradaha maayar iyagoo lasoo diray deegaanka ay u dhasheen ay ka tirsan yihiin intay yimaadaan ma iska sharaxaan maxaa lacagta la keenayo xildhibaankii soo salaada intan qaado waa salaantii wixii kalena way inoo dambaysaa ma waddan baa masiir umadeed lacag laguma hayo lacag la bixiyana masiirka ummadda waxay kala tahay dadku ha qaateen cidda wax u taraysiyo cidda wax u qabanaysiyo qaabkay noqonayso taa marka waxaan isleeyahay war dhaawacii baan laanahay waxaan ku qaadnay qofkaad soo diraysaan lacag intaas waliba walba si qarsoodi ah kusoo siiyo diyaaradaha iyo ka daaya iyo noocaad ku waxaynaysaan haddayna federaal iyo isteydadan macno idinku samaysnayn maxaad u soo dirsanaysaan ood ku wafanaysaan islaba tuuro qori iyo qiiq waa waxyaalaha aada dhibaatada leh marka waddankaani waxaan isleeyahay indhalii baa lagu hagayaa gaari indhala oo nalalka loo damiyey oo muraaduhu madow yihiin oo meel uu socda aan la garanaynin baa lagu waxaynayaa waddanku talo badan iyo xal badan buu u baahan yahay taas waxaan isleeyahay bal intii dib loo fiiriyo waxyaalaha aan shirka kaga wada hadli doonna ay ka mid tahay haddii ilaa idhaahdo cid kastoo waxgaradana ay iman doonto waxaan rabay beesha caalamka aan rabaa inaan mar labaad ugu celiyo way ka gaabinaysaa iyagoo aan ugu qadarin iyo ixtiraamba ku siinayna xaaladda soomaaliya iyo waxay ka geysteen haddana in intii la isasii fiirsado in lagu yidhaahdo war dhib baa dhacay xaalad baa taagan waa la kala taagan yahay maya waan u yeedhaynaa iyo lacag baan siinaynaa iyo annagaa keenayn iyo idinku faraha kala baxayn sidan hala yeelo ma aha wax sax waana masalo u baahan inay beesha caalamku bal waddankan iyo meeshu ku socdana dib u fiiriso xaaladdana siday tahay dib loo fiiriyo waxaan rabaa inaan wax yar aada uga kana tacsiyeeya inaan ka xumaa inaan sheego dagaalada maalin walba soo noqnoqonaya labadii maalmood ee lasoo dhaafnay qabaa'ilba waxay isku laynayaan walaala oo wax u dhexeeya ayna jirin deegaanada waxaan rabaa dagaalka dadka soomaaliyeed in siyaasadda laga daayo dagaalada oo dadka aan la isugu dirin siyaasad waxaan rabaa inaanu sheego dowladda federaalka somalilan puntland iyo cid kasta iyo waxgaradka aqoon-yahanka dadka soomaalida war dhiigga daataay dhibaato unbuu keenaa cidnana waxba uma tarayo qof soomaali oo dhintayna waa wax adiga kaa baxay waxbana kuuma tarayo ma doonina dagaalada in la siyaasadeeyo oo dadka walaalaha la isku diro dhibaata dhexdooda ka dhacdo arrintaas waxay la tahay in la joojiyo baaq laga soo saaro la tago la isdhex maro waxay ugu kala maqanaan oo aada uma garanayo soomaali waxa ku kala maqana wax saxa maaha in maalin walba la waayo intaasoo qof baa la waayo la yidhahdana waa burbur in la siyaasadeeyo oo magacyo loo samaystaana waa dhibaato kale arrintaa waanan ka digaynaa waanan ka tacsiyeynayna waxaana rabaa qof kastoo khusayso kelmad ku lahow hawsha iyadaa bal inaad intaad qaybtaada ka qaadato in la baajiyo oo la badbaadiyo oo la kala celiyo mujtamaca soomaaliyeed ee walaalaha ee mar walba dhibaatada dhexdooda gaarayso ee wax iyaga isu geeyey iyo waxay kala galabsadeen midna una jiro waan isleeyahay arrintaasi waa arrin u baahan in aada iyo aada loogana fiirsado xalla laga gaaro waxaan ku soo uruurinayaa warkayga saaxiibadii baa kolley iga dambayn dooneen soomaaliya marxalad adagna way soo martay xaalad adagna way ku jirtaa waxay u baahan tahay maanta hoggaanka jiraayay inuu dib isugu noqdo xisaabtado oo dib uga fiirsado oo warka habeenkii loo sheegaya intuu iska daayo ka dharaarta uu qaato inuu ogaado mas-uuliyadda saaran iyo kuwa aan nahay kuwa ay yihiin waxa waddanka naga saaranna uu ogaado war laysu sheegood berri kaga tegaysana macnahayna kuu samaynayn qof walbana taariikhdu waxbay kaga tegi doontaa waan hubaa nin kastoo maanta mas-uula berri uu ka tegi doona weliba way adag tahay nin mas-uul ahay soo noqnoqosha inay timaado noocaa mar hadday tahay qof walba taariikhdaadana ha xumayno magac xumana ha kaga tegin aad baad u mahadsantahay salaam calaykum